koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan sabskrayb saar janalkan keenin waryaada kalamaan warkii hore war soo dhaaf waa yeelkii baa kacay wax dheefkiina waa huray ciidankiina waabiyey indhaha muushatay indhaha ayaantaa kuleel idilaa waab qabooba haddaan heli lahay waaba seexa lahaay warwarka naga suga madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi 2 sano aan madaxweynaha ahaa bil kasta wax waa heli jirteen 3 bilood u dambaysay in wax si ahaayeen waan ogahay buu yidhi wixiinana waad helaysiin haddii alla idmo abdixalana ciidankii furumaha ka soo baxay baashii waa gaartay ra'iisul wasaaruhu maalin dhaweed wuxuu yidhi ciidanka bil walba mushaarkooda waan bixinnaa madaxweynuhuna in 3 bilood si wax ka ahaayeen buu qiray marka labadii dalka ugu sarraysay miyaa kalamaan noqday war ciidankii baraa wa joogay markay dhaheen annaguna waa baxaynaa ganacsatadii baraa waa la hadasha wixiina annagaa bixinayna hadday dawladda ka imaan waayaana noo joogay dhaheen marka waxaan la yaabanahay ganacsatada bakaare iyo suuqbacad joogtaa intaas ma gara waayeen ma gara weynina bakaare iyo suuqbacad canshuuraa laga qaadaa war madaxda dawladda midkii hadlaaba wuxuu dhahaa shacabkaan nala shaqaynayna wax waliba way socon lahaayeen war waxaa la yidhi dadku dawlad adeegtiyo dalka maamul hagaajoo danahooda ilaalsha oo colka dhiigga ka dhaasiya yur tidhaahda dugaagga dayac waa ka dhargeene diyaar bay u yihiin daklina waa ku baxshaane iyagaa ah dembiiliya eeddamaa laga daayo war militariga waa tii la qanciy nabasuudda awli cabanaya furma ay ka soo baxaan ma haystaan miya war furin iska dhaafe xataa taliya ma leh war ciidan aan furin haysan fahad baa ka mas-uula war nabad sugidda furimahooda waxay ahayd guri kasta iyo meel kasta waxa jooga inay ogaadaan marka militariga waay waxa furimaha gala tirdoonkuna xogta cadowga dhuumanayuu ogaadaa war madaxweynaha wuxuu yidhi waagaan ra'iisul wasaaraha ahaa saraakiishii joogtay ayaa ka fiicnaad kuwa hadda jooga warkaas micnihiisa waxaan u gartay markaan ra'iisul wasaaraha ahaay ayaan ka fiicnaay markaan madaxweynaha noqday aryadaha ciidanka furumaha ka soo baxay mucaaradku lugay ku lahaayeenaa la yidhi mugay soo baxeenna geelayba u qaleenaa la yidhi kadibaa dawladdu indhaha kala qaadaa la yidhi ay ku soo baraarugta ciidankiyo loo adeegaayo mugaaska kadibaa waxaa qasab noqota in ciidanka lacagtoori loo geeyo mugga waxaan dhihi lahay anigu ow haddaad qaarashkii qaadateen qaranka ma difaacatiin haddaad qaarashkii qaadateen qaranka ma difaacatiin haye hadday qanceen ciidan qaran waa qasab shaqa inay qabtaan war anigu waxaan la yaabanahay waxaa tooxow dhuusamareeb ka soo ceerishay oo xamarkeena yaa tooxow tifoobow soo jershay shib naga dheh war tooxow aan ku soo xasuustay wasiir qarafaan oo wafdi ballaaran hogaaminayaa dhuusamareeb dig ka yidhi maanta waxaana la sheegay inuu shir la galay wadaadadiiyo madaxweyne xaafoo tusbax weyn wataa u horreeyo war goormuu tabliiq noqday madaxweyne xaaf war usbiyey tabliiqti wiinya ijaasi lisi waryaa warkaa naga dhex gelinayna dhegaysta anuu safarka wasiir qarafaan waxaan ku soo xasuusta midka hadda ka hor uu baydhabo ku tegey waana kii shariif ka saxiixay inuu iska tago marka waxaan odhan lahaa war wasiir qarafaan qoladu u tagaa xilka waa ka qumaan oo qaabkii weeye shariife qabiirkeennii caddaaday ama qoolgeliya war wasiirkaa ku mashquulin cirbadaha nabad inoo loo xambaarsan yahay war waa horuu xaafiire musmaaradaas indhaha ha naga gelinina laakiin waxaan u malaynayaa qoorqoor haddii qarafaan ugu darsamay inaan meeshaa fadhiuol warnimaya war mahaytan ani warsiinhaayay dhegansada gabalkale ley nairobi alakashiri madawiinagaana lafta gareenkoowdhe inti usla tartamaasay musharax hayti ya gabalkaas ka shireen onkoreebtana baashi liihaadna ka jirti osan beasha caalamka onkoradaasan shirkaas may ka saabsanahay kasaasanahe obowrowow mansuur sidii lahan dhiifadi waana koldhow war hadhiyay war ku suga runku suga warrowo xarigiisa hadda ka hor guddoomiya mursala ka hadlay soo baydhabo jooga wuxuuna yidhi aniga ee lafta gareen haddaan soo dayn weyno waa iscasilaynaa waa ka yidhi arrintii miyaa beesha lixaad loo raray haddana iyo caalamka war aana hele maalin oo gobolkan roogna arday go'aan ma deeri korta war ma haysaana xildhibaan daahir amiin jeese wuxuu yidhi axmed madoobe maantuu xamar jooga ayaa ha la soo qabto oo xasan daahir uways iyo roobow xabsigaa loogu geeyo waa isku dembiye war waxaasi warna maahe awowgood la gub xagee baa
laga keenay war jeesow baa keenay jeesowna waxaan ku sugi kismaayo shaalle wuu imaanay war kalood run ku sigtiin baan idin hayaa war waxaa la yidhi bele kadib madaxweynayaashii maamul goboleedyada ee hore iyo kuwa hadda tegi doona nairobi ay ku shirayaan xisbi ay si diyaarsadeen ayayna ku dhawaaqayaan hadda run ku suga warkaas xabad run ku sugi mayno oo waxaa hore loo yidhi kurus madala caloolay gacan saar ahaa dhaanta maahmaahadiinku ku dheelo abdulow ambuul maanyafuulka hamaro hayta mushaarikiin karsana ku dhoaleeri war adiguba waad ku dheeshaye mira gunti ku jira kuwa geed saaran looma daadiyay ahayd war baarlamaankii layidhi kalfadhigu wuxuu furmayaa 27 bisha shabaq yaraa aawe war shirkii maamul goboleedyada iyo dawladda la yidhi asigaba waa furmayaa aawey war nimayow qaraxyadii xaalkoodu waa soo xumaaday afkaaga allah ku noqo baadirgawiilaaw may garahnininka sheegdatile geed nabadeed fidhiinayha war geedaha laftooda la isugu xirayaa jaamacadihiina waa la beegsanayaa baa la yidhi hadda allahana badbaadiya in la dhaafaya lama arke war waa inuu sacaldheer isqarxinayne yaan ilmaha la dhammayn waryaada kalamaan qaraxyada ay fuliyaan ururada argagixisada ah waxaa la yidhi waxaa 80% lala beegsadaa dadka shacabka ah war waxaan la yaabay madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi shabaab argagixisanimaa ka soo hartay miyuusan awal ogeyn wargeed garowsad jawtiisan kunatay madaxweynaga war madaxweynaha luuqad official kula hadal isnaaw war islow wasiirka amniga waay ilmayaha ma la maqlay diinberga haayba waa ku maqlo haynaa dooshay dheego hayna war waxaan la yaabanahay goboladan webiga Shabeelle la maro mar biyo la'aan bay ka cabanayaan marna daaday ka cabanayaan marka waxaan la yaabanahay Soomaalidu iqooyo qala jimiya arma ee afka raxmada ku tuugda rafaadkuna ku tuugayda war dhibaatada dhan haysataa waxa weeye webigii bay qashin ka buuxsheen inay ka qotaan ma gartaan war gobolada dhaxmay ku wareejiyaan haday webi ka faa'iideysaneen wax kasto aad sheegto Muuse Biixi webigan loo leexin maayo haye goorba gaalka ayaa loo leexiyaa war gaalka ay uma baahna yamaysa ku yaala war odayaashii sanaag waxay dhaheen waxaan dhaxdhaxadinaynaa Soomaaliland iyo Puntland hortood jiraba waa meelay la yaabo yaasinka war adigu ma nafbix rabaa yaasiinne maxaad u habaaraysaa yaasiin ku ha ku dhaafeen